السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين إمام النووي رحمه الله وسوق بنية شرح الشيخ شريف عبد النور رحمه الله. hoos waxaad ka helaysaa linkiga kitaabka oo carabi ah asoo Soomaali ah iyo asoo English ah, marka kala soc halkaas kana faa'iideyso. waa kitaab aan ku gaabinayo qof kasta oo muslima ah inuu kitaabkan uu barto ugu yaraan. السلام عليكم ورحمة الله. أسامة أكثر تاسويه مكة وأكثر رواية بلد يوم الصحابة أولياء، لكن حاجة أولياء اليوم لين كبارين. رضي الله عنهم قال: نظرت وحن سيري ونفسي هجرة ويوم غار ثور أي قلين إلى أقدام المشركين قلبي قال ذا أيام سيري وضش يد التاجن ونحن في الغار. أنا نقول يا كجر غار ثور أو كجر وهم على رؤوسنا الدش ملح إلى ابن تاجن. غار ثور كاسنا waxaan jeclaan lahaa inuu qofkii kari karaayo uu arkaho soo arko ku cibra qaato oo alla subxaanahu watacaala manasheegtii rasuulkiisa ugu banasheegtay ee uu inuu isagu gaalada ka badbaadiye uu sheegay inay qiimaha leedahay buu aada u garan lahaa. waa meel yaroo gaaban oo dhagxan isdul saaran meel yaroo lahoos huluulanayo oo fadhi kaliya la fadhiisan karayo ama la seexan karayo oo qofkiisa soo dul taagaayo wax meel uu ka galo oo uu kaga dhuntiyo aan lahayn oo inagoo sidan u fadhino oo qof halkan kada marka uu isa soo taagay oo kale un weeyaan sarirtantada waxbaa intay naga korayso intuu soo dul taagayna soo fiiriyey. marka waktiga meeshaas sidaas oo kale ah ayaa iyagoona kor taagan ayaan arkay. فقلت يا رسول الله وأنا يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. حدون متكود فيريو قنديس هوصل صار فيريو وأن أركي لها. فقال مركز وحيد: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. نحاب لينا أبو بكر لوقفوا على لجرو لوقفوا على لجرو على وقع علينا لينا ألا إن لجرو حبها عبسن متفق عليه. marka waa min akbar التوكل weeyaan rasuulka صلى الله عليه وسلم yaraantooda iyo meesha ay joogaan cidlanimadeeda iyo sida ayna meel lagu gaban kara ayna u ahayn iyo ragankada colkooda ee soo raacdaystay inay ka cararaan kolay ku tahay u diidayo oo inay laayaan mooyaane wax kalaan ku raalli ahaanaynin waxba maanu ka cabsanin. maciyada alla buu soo xusuusay rasuulku صلى الله عليه وسلم. allana marka subxaanaه watacaala waa ka yidhi: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وtaa marka ayada ka warramaysakan wayaan kolkuu saaxiibkiis ku lahaa habaqin abu bakr oo alla inala jire. متفق عليه. التاسع عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها أم سلمة magaceeduna hind binta abi umaya. abu umayana waa kunyadiisa magaciisu wuxuu ahaa xudayfa ibn mughira ayaa la dhihi jiray. marka magaceedu waxaa weeyaan hind binti xudayfa ibn mughira ibn cabdillah almakhzumiya qabiilada bani makhzum la yidhaah oo ka dhalatay khalid ibn lwalid radia allahu canhu iyo cikrima ibn abi jahl iyo adeertood bay ahayd ridwan ullahi calayhim ajmaciin. رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته wuxuu ahaan jiray markuu guriga ka baxo. xadiidkan kaluna warka waxaa weeyaan waa adkaar الخروج من البيت. guriga marka laga baxayo dikriga la akristo yuu ka mid yahay. marka dikriga waa sidii kii albara ibn caazib aan soo maray ayuu isagana tawakul ugu jiraayo sidaasuu halkan kale ugu sheegaya. marka halkaas in xagga dikriga in lagu sheegana munaasib buu u yahay. wuxuu ahaan jiray marka gorkuu guriga ka baxayo albaabka intuu istaagu wuxuu dhihi jiray: bismi illaah tawakaltu cala allah allahuma inii acuudu bika an adila aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala calay. saasuu dhihi jiray. waa xirsi xiran jiray marka kolkuu baxayo dadka u dhex gelayo yuu kala saaran jiray dadkana ka xirsi xiran jiray inay dhib u geystaan ama isagu dhib u geysto.
bismi illah yani magaca allaan ku baxayaa. tawakaltu cala allah, allaan tala saartay. allahuma inii acuudu bika allo waxaan kaa magan gelayaa an adila inaan lumo aw udalla ama la ilumiyo. riwaa kalena waxay dhahaysaa an adila aw udilla inaan ama lumo ama wax lumiyo. aw azilla aw uzalla inaan gafo ama la igafsiiyo. marka isna riwaa kale waxay dhahaysaa aw azilla aw uzilla inaan gafo ama anigu wax gafsiiyo. zalla waxaa la yidhaha simbiri xashada ayaa la yidhaha yani inaan ka beydho jidkii toosnaa ama laiga beydhsiiyo ama qof ilaanu ka beydhsiiyo. aw adlima aw udlam ama inaan wax dulmiyo ama la idulmiyo. aw ajhala inaan adab daraysto aw yujhala calaya ama laigu adab daraysto. in kaa magangelaya ina qofka gurigiisa ka soo baxa dad buu soo dhexgalaya, dad buu la macaamilaya. dadkaas marka waxaa suurowda inay wax uun dhibaato ama ugeystaan ama isagu dhibaato ugeysto oo marka inuu dadkii lagana nabadgalo isna uu ka nabadgalo ayuu ku hirsixilanaya. marka kolkii la baxayo waa in arrintaa la ilaawin. xadiiثun xasanu صaxiix wa hada lafdu abi daawuud. abu daawuud baa lafdiga ku wariyey waana xadiid صaxiixa sida uu yihi weeyaan صaxaxu alalbani fi صaxiix اljaamiع الصaغيir. العاشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم. kana marka isna waa sida xadiidkii umu salama oo kale ayuu isna wuxuu ku saabsan yahay adkaaru الkhuruuji min albeyt. isna sidoo kale tawakul ugu jira. wuxuu yihi man qaala qofka yidhaaha yani xiina idaa kharaja min beyti markuu gurigiisa ka baxayo qofka yidhaaha bismi illaahi tawakaltu calى اllahi walaa xawla walaa quwata ila billah. walaa xawla walaa quwata illa billah idanaa dheeraad ku ah oo kii hore aan ku jirin. yuqaalu lahu waxaa lagu dhahayaa oo malag uu ku dhahayaa hudiita wakufiita wauqiit. alla waa ku hanuuniyey oo alla waa ku kaafiyey, shar oo dhan waa kaa kaafiyey oo alla waa ku ilaaliyey. watanaxaa canhu shayطaan, shayطaanka ka fogaanee ka cararaya. shayطaan iyo malag ayaa qofka ku sugaaya markuu soo baxayo iridda ku sugaaya. marka wuxuu kolkuu soo baxayo siduu yeelo yo maanta oo dhan inuu malagaasu la jiraayo iyo inuu shayطaan ku farag xidhanaayo maanta oo dhan waxay ku xidhan tahay sida uu yeelayo markuu soo baxayo. hadduu dikrigankaa ku soo baxo shayطaankii waa ka cararayaa malagaasa raacaya oo toosinayo oo hagaajinayo sharka ka kaafiyaya. shayطaankaa marka ka fogaanaya. rawaahu abu daawuud watirmidiy waanasaa'iy wagayruhum. abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo keyrkood. keyrkaana marka waxaa ka mida abu bakr bin sunni fi kitaabi camal اlyawmi wاllayla oo haddana isagu ardaygii nasaa-i oo inta badan nasaa-i ka wariya. wagayruhum qaala tirmidiy xadiiثun xasan zaada abu daawuud. abu daawuud wuxuu ku daray oo labadaa kale iyagu ayna sheegin. fayaqulu wuxuuna dhahaya shayطaan watanaxaa canhu shayطaan. shayطaanka ka fogaanay soo ma ahayn halkaasay kuwii hore ku joojiyeen. abu daawuud isagu waa soo wado wuxuu yidhi shayطaankiibaa wuxuu dhahayaa oo shayطaan kale ku dhahayaa kayfa laka birajulin qad hudiya wakufiya wauqi. leanna hadalka malag buu maqlayaa. marka warnaba kankada maxaan ka helaynaa nin intaasoo dhan loo sameeyey, alla hanuuniyey oo kaafiyey oo ilaaliyey. laakin kan waxba ka heli mayne. xadiidkuna marka waxa wey waa xadiid oo صaxiix ah صaxaxahu fi صaxiix jaamiع الصaغيir. وعan أنس رضي الله عنه qaala kaana akhawaani calى cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalayه وalih wasalam. waxaa jirayay laba nin oo walaalaa waqtigii nebiga salى الlahu عalayه وalih wasalam. wa kaana axaduhumaa yaati الnabiya salى الlahu عalayه وalih wasalam. midkood nebigu u iman jiray oo majliskiisu laazimi jiray oo cilmiga uu ka baran jiray. wاlآakharu yaxtarif, ka kalena waa shaqaysan jiray. yaxtarif yani yatakasab, waa shaqaysan jiray. fashaka almuxtarifu kii shaqaynayey baa dacwooday oo dacweeye akhaahu walaalkii buu linabiyi sal ly slam nebiga ku dacweeyey oo wuxuu ihi ninkan kadu ilama shaqeeyo oo cidda masruufkeedii anuu igaga baxay. faqaala markaasu wuxuu yidhi lacallaka turzaqu bihi, waxaaba suurowda in sababtiisa lagugu arsaaqo. shaqadan aada u kallahayso
wax soo helayso sababkaad wax ku soo helaysaba ninkaa tawakulkiisa iyo yarxamuka allah inuu yahay baaba suurowda. marka ninkan nin mutawakil oo taalibulcilmi buu ahaa majliska nabiga sal l slam qur-aanka ka baranayay, kanuna marka waa shaqaynayay. markaas kan kada inaanu dowrkiisu ka yarayn, midkan kada dowrkiisa ka yarayn, oo kan mutawakilka ee cilmiga qalabkiisa u go-ayu khayrkiisa iyo tawakulkiisa sababtiisaba alla walaalkiis risqiga usoo sahlayo yaaba iska suurowda. rawahu tirmidiyu biisnaadin صaxiixin calaa sharti muslim. waana sidaa uu sheegay tirmidi sheekh nawowi uu sheegay oo xadiidku saxiix weeyaan. sheekh alalbani wuxuu ku saxiixiyey fi saxiix jaamic sagiir waa kuus suurada kale oo la macno ah ayaa oo ha ka leexanin jidka adiyo ummadaadu toona. wa qaala tacaala ina aladiina qaaluu rabbuna allahu ثuma اstaqaamuu tatanazlu calayhim اlmalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduuna ila akhiri اlaayatain. ina aladiina qaaluu kuwa dhaheen rabbuna allah rabbiga ya alla weeya, yani mu'miniinta noqday, uma istaqaamuu haddana toosnaaday ee jidka alla raacay oo iimaan iyo istiqaamo isku darsaday, tatanazalu calayhim waxaa ku soo kordhegaysa almalaa'ika, malaa'igta kusoo kordhegaysa kolkay sakaraadayaan ee naftu ay ka baxayso ayay malaa'igtu kusoo degaysaa oo u bishaaraynaysaa oo cabsida ka bixinaysaa. waxayna ugu soo degaysaa ku dhahayaan anlaa takhaafuu, ay taqulu lahum laa takhaafuu. anta noocaas oo kale a waxaa la yidhaha mufasira la yidhaho bimacnaa ay waxay ku dhahaysaa laa takhaafuu ha baqina walaa taxzanuu ha murgina. ha baqina oo waxa idinka horeeya ha ka cabsanina, dhibaata idinkama horraysa, khayr iyo janno iyo nicmo allah iyo raalli ahaansha allah idinka horreeye. walaa taxzanuu hana murgina oo waxaad ka timaadeen ahalkiinnii iyo carruurtiinnii iyo inay rafaadaan ha uga murgina. dhan walbaba marka waa laga ammaan gelinayaa. wa abshiruu ku bishaaraysta biljanna, jannadii ku bishaaraysta alatii kuntum tuucaduuna ee laydin yabohi jiray laydinku ballan qaadi jiray kolka adduunka haydeen, jannadii baa idinka horrayso hadda laydiin oofinayaaye ha cabsanina. naxnu awliyaa'ukum, annagaa asxaabtiinnii ah fi lxayaati اdunyaa, noloshii sokay hore iyo noloshii sokay adduunyada iyo wa fi laakhira midda dambaba, aakhiri adduunkaba annaga asxaabtiinni, annaga adduunkan idinla jiri jiray oo muxuaha idin waardeyn jiray oo shayطaanka idinka celin jiray oo muxuu ahay idin toosin jiray, jidka toosan idinku hagaajin jiray, haddana annagaa idinla jirayna. walakum fiihaa, idinkuna waxaad ku leedihiin jannada maa tashtahii anfusukum, wax alla waxay naftiinu ishtahaysay jeclaysataad ku leedihiin. walakum fiihaa waxaanad ku leedihiin jannada dhexdeeda maa taddacuuna waxaad dalbataan ayaad ku leedihiin. nuzulan sooriyo, nuzul waxaa la yidhaahaa sooriyada loo sii diyaariyo martida intayna imanin ee mar alla markay timaadaba lagu maamuusay loo keenaa la yidhaha. min gafuurin raxiim, allihii dembi dhaafka badnaa ee raxmadda badnaa uu idin sooriyeynayo, martiqaad alla uu fidinayo. qofuu alla martiqaadayo waxaad u malaynaysaan waxa uu alla siinayo ee uu ku sooriyeynayo inta uu leegyahay, alla unbaa garanaya. laakiin kollayba inuu wax weyn yahay, nicmo aada u weyn tahay baynu suuraysan karaa. wa qaala tacaala ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. kuwa sidaa yeelay laa khawfun calayhim, cabsiyu dushooda ma aha, walaa hum yaxzanuun. tii hore ha cabsanina bay ahayd oo amar iyaga la amrayay bay ahayd, tanuna waa waran laga warramayo, ma cabsanayaan, walaa hum yaxzanuuna mana murgayaan. ulaa'ika asxaabu اljanna, kuwaasu waa dadkii jannada, khaalidiina fiiha iyagoo ku waarayo aan ka soo baxaynin. khaalidiinadaasaa marka iyaduna macno aada u sii weyn laho hadhow insha allah aan arki doonno kolkii loogu bishaareeyay jannadantadu inayna ka baxaynin ay ku waarayaan say u farxi doonaan. khaalidiina fiiha jazaa'an, abaalgud oo bimaa kaanuu yacmaluun, waxay samayn jireen ee camalkay samayn jireen sababtiisa loogu abaalgudayo. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله waxaan idhi يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك
waxaad ii dhahdaa oo ii sheegtaa islaamnimada wax ku saabsan hadal oo aanan qof kaa dambeeya aanan su-aalin hadal ii kooba islaamnimadoo dhan ii kooba oo aanan qof kale inaan wax weydiiyaba aanan u baahanaynin ii sheeg qaala markaasuu wuxuu yidhi qul aamantu billaahi uma istaqim waxaad dhahdaa allaa rumeeyey dhaho haddana toosnow diintii oo dhan buu labada ere ugu koobay waa iimaan iyo istiqaama aayaddii buuna ka qaatay nebigu sala allahu alayhi waali wasalam marka waxaa weeyaan xadiidkan wuxuu ka mid yahay min jawaamici kalimihi sala allahu alayhi waalihi wasalam hadalkii loo soo ururiyey ee erey gaaban uu ku oofsan jiray wax adduunka oo dhan aanay dhammayn karaynin markaas diintii oo dhan wax ka bixi karaa mau jiro lianna iimaan iyo camal saalixa weeye diinta oo dhanuba marka labada iimaankiina qul aamantu billah ayuu ku koobay camalkii saalixa ahaana istaqim buu ku koobay rawahu muslim وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم قاaربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رsuuل الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواه مسلم qaaribuu soo dhodhoweeya yani macnuhu waxaa weeyaan wixii la idin faray boqolkiiba boqol inaad la timaadaan oo aydan waxba ka dhimin ma keri kartaana waa ka tabaryartihiin laakiin soo dhodhowaado oo wixii la idin faray marka ku dadaala inaad la timaadaan bedelkiisa haddaydan dhammaantiin la imaan karin wasadiduu toosnaadana sadaadka laazima yani jidka toosan laazima waclamuu ogaadana annahu xaalku inuu yahay lan yanjuwa inaanu ku nabadgelaynin oo naar aanu kaga nabadgelaynin oo janno aanu ku gelaynin axadun minkum qof idinka midihi bicamalihi camalkiisa sabtiisa inaanu naar kaga badbaadaynin ogaada marka maxaa lagu badbaadaya fadliga alla lagu badbaadaa siduu nebiguba uu sheegi doono laakiin taasuna ma keenayso inaanu camalku faa'iide aanu lahayn ma keenayso aayadda aan soo marrayba waa kii ay lahayd jazaan bima kaanuu yacmaluun marka aayado fara badan oo qur-aanka ka mid ihina jannada iyo marka in lagu gelayo camalka ayay sheegaan xadiidkan kaduna inaan lagu gelaynin buu sheegay ismana khilaafayaan aayadahu marka waxay sheegayaan igu sabab ahaan alla sabab buu ka dhigay laakiin xadiidkuna wuxuu ka warramayaa mudasho ahaan alla wax lagu mutay oo janno lagu waajibsanaya alla lagu yeelanayaa ma jiro isagaa tanna ka dhigay sabab ka dhigay marka tanuna deeqdiisay ka mid tahay oo isagaa marka kolkii shaygii qofkii wuxuu sabab uga dhigay uu la yimaado yuu fadligiisa ku gelinayaa qaaluu markaasay waxay yidhahaan walaa anta yaa rasuula allah ma adiguna xataa rasuulka allow qaala markaasuu yihi walaa ana aniguna xataa aniguna kuma gelayo camalkayga ilaa an yatagamadani illaah ilaa alla inuu itiimbiye dhex geliya mooyaane biraxmatin minhu wa fadl raxmad xaggiisa iyo naxariistiisa iyo deeqdiisa inuu dhex geliyo oo jannada igu geliyo mooyaane camalkayga oo keliya haddii la igu daayo janna ma aana ku galayno naar kagama badbaadeen leanna qofku alla wuxuu u taray oo uu ugu mudanayaa ma uu jiro weliba xataa haddii xisaab la galo qofku wixii camale uu sameeyey wixii adduunka nicmeha ku qaatay baaba ka badbadan sida uu rasuulka alayه الsala slam uga warramay nin dadadkii hore ahaa oo muxuu ahayd bad isagoo ku safraaya doon intay la jabtay oo meel jaziiro ah loox intuu qabsaday ee ku soo tuurtay oo arkay il yar oo durdura arkay iyo geed rumaan ah oo halkii iska degay oo yidhi halkanaan geerideeda ku sugaaya biyahaana iska cabaayey geedka rumaankaana midhihiisa cunaayey oo goortii dambena kolkuu dhimanaya alla weydiistay inuu isagoo sujuudsan uu nafta ka qaado oo sidii alla u yeelay oo marka kolkii alla subxaanahu watacaala loo keenay uu yidhi addoonkayga raxmaddayda jannada ku geliya ayuu wuxuu yidhi maya camalkayga hala igu geli camalkiisiibuu yaa la weynaaday markaasuu alla ku celiyo o yidhi addoonkayga jannada ha lagu geliyo raxmaddayda maya camalkayga hala igu geliyo markaasuu alla yidhi subxaanahu watacaala malaa'igtii ku yidhi xisaaba addoonkayga oo nicmooyinkaygii aan siiyey iyo camaladiisa isu xisaaba hal xawaasiisa mid ka mid ah nicmadeedii ayaa ka badbadatay marka camalkiisii kolkii la isu xisaabay markaasuu alla yidhi addoonkayga marka naarta geeya kolkaasuu cawday oo yidhi yaa rabb jannada fadligaaga ha laygu geeyo markaas fadliga alle lagu geliyey
almuqaarabatu muqaarabada qaaribuu laga faa'iidaystay alqasdu aladii laa guluwa fiihi walaa taqsiir waa dhexdhexaysiga aanu xadgudubna xadka bixina ku jirin gaboodfalna aanu ku jirin si dhexdhexaad ah loo camal falo wasadaadu اlistiqaama sadiduu midda la leeyahayna waa toosnida walisaaba iyo sawaabka oo lagu taagnaado wa yatagamadanii yulbisanii inuu ihuwiyo oo wayasuranii idhexgeliyo saasaa laga wado qaala alculamaa macna alistiqaama istiqaamada macnaheedu waxaa weeyaan luzuumu طaacati اllaahi tacaala taacada alle oo la laazimo qaaluu waxayna yidhaaheen wahiya min jawaamici اlkelim wahiya nidaamu اlumuuri wabiاllaahi tawfiiq waa erayada jaamicada ahee waxba aan ka tegaynin bay ka mid tahay istiqaamadaasoo khayr oo dhan keenaysa waxay arrimahoo dhan ku taxan ku xidhan yihiinna iyada weeya wabiاllahi tawfiiq baabun fi الtafkiiri fi cadiimi makhluuqaati اllahi tacaala fakeridda laga fakiro makhluuqaadka alla weynankooda cirka iyo dhulka iyo buuraha iyo badaha iyo xayawaanaadka iyo waxyaalahaas waaweynankooda iyo farabadnidooda iyo dhagxanta iyo macaadinta iyo waxyaalaha in laga fakiro oo aan loo qaadan wax iska caadiya inay yihiine lagu aqoonsado rabbigii waxyaalahan kada abuuray cadamadiisa iyo weynankiisa iyo awooddiisa lagu aqoonsado wa fanaa'i dunyaa iyo adduunyada baabi'iddeeda in laga fakiro wa ahwaali alaakhira dhibaatooyinka aakhiro wa saa'iri umuurihimaa aakhiriya adduunka arrimahooda oo dhan laga fakiro wa taqsiiri الnafsi qofka naftiisa gaboodfalkeeda uu ka fakiro wa tahdiibihaa naftiisa hagaajinteeda iyo toosinteeda wa xamlihaa cala alistiqaama iyo ku xambaariddeeda iyo istiqaamo lagu xambaaro ee istiqaamada la laazimiyo oo nafta la xakameeyo oo la kontaroolo oo gacanta lagu hayo qaala allahu tacaala inamaa acidukum biwaaxidatin an taqumuu lilahi matnaa wafuraadaa uma tatafakkaruu waxaanu idinku wacdinayaa hal eray oo keliya hal shay keliya oo haddaad qaadataan waxa kale aydaan u baahnayn an taquumuu lilah inaad xagga alla u toostaan mathnaa laba iyo wafuraadaa midba koox iyo kala jirba wadar iyo keliba inaad xagga alla un ku toostaan uma tatafakkaruu haddana aada fakirtaan taas baan idin farayay wa qaala tacaala ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab waa aayadahaas suuratu ali cimraan dhammaadkeeda ah ee rasuulkuna salى اllahu عalayhi waalihi wasalam kolkuu hurdada ka soo tooso uu aqriyi jiray isagoo cirka eegaya wejigana gacanta kuma masaxaya ina fii khalqi الsamaawaat samaawaadka abuurkooda waxaa ku sugan waalardi iyo dhulka abuurkiisa waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar habeenkiiyo maalinta isbabeddelkooda ay imaatinka isku bedelaanay midba mar uu yimaado ka kale uu bedelo ama iyaga isbabeddelkooda ay axwaashooda isku bedelaan oo kol ay gaabanayaan kol ay dheeraanayaan kol qabow kol muxuu ahaaye kulayl kol roob kol qalayl waxaa ku jira la'aayaatin calaamooyin iyo tusaalooyin baa ugu jira liuli اlalbaab asxaabi alcuquul dadka caqliga leh uli waa bimacnaa asxaab albaabna waa jamcu lubbiguna waa caqliga cirka iyo dhulka iyo sida alla u abuuray iyo maalinta iyo habeenka isbabeddelkooda tusaalooyin weyn baa ku jira dadka ku cibro qaadanaya ee caqliga leh waa kuwa caqliga leh una aladiina yadkuruuna allaha waa kuwa alla xusa u cibaadaysa qiyaaman iyagoo taagtaagan iyo wa qucuudan iyagoo fadhi iyo wa calaa junuubihim dhinacyadooda iyagoo ujiifada had iyo goor alla u cibaadaysa kuwaa weeyaan ilan dadka qofka axwaashiisu intaa kama baxsan inuu taagan yahay cagaha ku taagan yahay inuu fadhiyo inuu jiifo ma aha marka maanu dhihin kuwa mukhtariciinta ahee sawaariikhda iyo dayuuradaha iyo waxyaalahaas iyo ikhtishaafe ikhtiraacay raadioga iyo telefishinka iyo waxyaalaha soo saaray iyo telefoonka iyo kuwayaalkaasaa ah kuwa caqliga le ah ma aanu dhihin
kuwaas oo waxyaalahaas oo kale waa kuwa alla ku sheegay yaclamuuna ظaahira min alxayaaةi الdunya wahum can اlaakhirati mغaafiluun. waxyaalaha sanacaadkaasu inkastoo yihiin waxyaalo loo baahan yahay oo manaafic adduunyo ah leh, haddana kol haddayna waxyaalahaas kuwii ikhtiraacay ayna ku gaadhin rabbigii waafajiyey ee asbaabtantada ay qaadanayaan iyo musababaadkeeda isku xiray ku aqoonsigiisa, waxaan caqli lahayn ayuu alle ka soo qaadayaa. marka waxyaalahan teknolojiyadu uhu waxay ku fiicnaan lahaayeen inuu iimaan la jiro. hadduu iimaan la jiro oo alla lagu aqoonsado nicmo ayay noqonayaan, haddii kalese manfaca adduunyo keliya iskaga gaaban bay noqonayaan. wayatafakkaruuna kana fakirayey fii khalqi الsamaawaati wاlأrض, cirkiya dhulka abuurkooda iyo waxyaalahaasna ka fakirayey. marka si ay uga fakirayaanna uu yahay si ay rabbi ugu aqoonsadaan, ma aha inay marka muxuu ahaaye xidigaha iyo socodkooda iyo ay aad iyo aad bay u rasdiyaan oo aad bay u yaqaanaan oo xidig walbaba intuu leegyahay iyo xajmigiisa iyo inta ilbiraqsigiiba inta kilomitro u gooye iyo meeshuu ku socdo majruhu ku socda iyo waxyaalahaas oo dhan aad bay gaaladu u yaqaanaan oo madoobaadka qoraxda iyo dayaxi iyo intayna weli dhicin bay saacado fara badan ka hor iyo maalmo fara badan ka hor oo kasii warramaan. laakiin sidii alla uu rabay ma aha sidana marka ay uga fikiraan iyaga u yaqaanaan, waa si dunyawiyahoo maadi baxti ah weeyaan. marka taasna kolkay sidaa hadday noqoto alla agtiisa qiimo kuma leh. sidaasuu marka alla u leeyahay kolkay ka fikiraan waa inay yidhaahaan rabbanaa maa khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaab الnaar, kuwa sidaa yidhaaha weeyaan. ee kuwa marka wax oo dhan inay wax iska maadiya ay yihiinoo wax iska muxuu ahay aan wax diin shaqo kule aan ahayn ay yihiinna kuwaas ma aha marka kuwa caqliga le ma aha. rabbanaa maa khalaqta hada baطilan, rabbigayow kan bilaash uma aadan abuurin ee xikmad baad u abuurtay. subxaanaka hufnaantaada iyo nasahnidaada faqinaa cadaaba الnaar, naarta cadaabkeeda allow naga badbaadi. wa qaala tacaalى afalaa yanduruuna ila اlibil, miyayna fiirinaynin geela kayfa khuliqad sida loo abuuray, adimadeeda iyo madaxeeda iyo luqunteeda iyo indhaheeda iyo sida marka muxuu ahay muhimmada alla u abuuray ee rarashada iyo dhulka lamadegaanka inay ku socotay iyo si waafaqsan alla u abuuray. wa ila الsamaa'i kayfa ruficat, cirkana miyayna fiirinaynin sida alla uu u dheereeyo sare uu qaaday iyagoo wax tiiraro hayoo la arkaya aanu jirin, saqfi uga dhigay, saqfi marfuuca uga dhigay. wa ila aljibaali, buuraha miyayna arkaynin kayfa nusibat, sida loo dhisay loo qutamiyey ee baroosimo ee dhulka looga dhigay haddii kale inala liclici lahayd. wa ila alardi kayfa sudixat, dhulkana sida loo fidiyey loo ballaadhiyey. sadxiga alla marka uu sheegayo sudixad uu leeyahay, meelo qaarkoodna muddad uu ku yidhaaho ma aha macnaheedu inuu shakliga ay tahay inuu ka warramayo. shakliga ay dhulka ay tahay inay si kubda kubadda ay tahay, inay sida ukunta ay tahay, inay sida gogosha oo kale u fidsan tahay, inay afargeesood tahay, inay mudawarta midna kama warramaya, laakiin waasicnimadeeda iyo ballaarkeeda unbuu ka warramaya. markaas allana subxaanahu wa tacaala ashyaadaas cilmiyada ah ee kownka ku saabsan markuu ka warramayo wixii muxuu ahaaye inta xaqiiqada ah ee iimaanku uu ku xidhan yahay ayuu uga warramaa mooyaane tafaasiil uma sii dhex galo. oo taas marka tafkiirka dadka yuu ku daayaa iyo tajaaribtooda. fadakir waaniyo wacdi, inamaa anta mudakir, adigu waaniye iyo wacdiya un baa tahay, lasta calayhim bimusaydir, adu mid xukumayo oo qasbaaya ma adhide. wa qaala tacaalى afalam yasiruu fi اlardi fayanduruu, miyayna dhulka dhex soconinoo ayna fiirinin oo xaalkeeda ayna ka fakirin sida dadkii hore iyo loo halaagay iyo ayna taariikhda aahaartii dadkii hore ay ka tageen iyo markay arkaan miyayna ku cibro qaadanaynin. waxyaalaha dadkii hore ay ka tageen iyo aahaartii iyo lafaha iyo alaabtii iyo weelashii iyo ay adeegsan jireen iyo waxyaalaha aada la isugu hawliye ee mataaxiftii iyo loo sameeyey rag ay ku takhasusaan ee buugaga laga qoray ee la tasawiro oo la isku hawliye bay ka mid yihiin zamanadantada. laakiin iyadana marka waxa weeyaan mid iimaan ku xidhan aan ahayn oo rabbigii subxaanahu wa tacaala dadka abuuray iyo dadka hore se u dhinteen iyaguna inay u dhimanayaan oo
la soo bixin doono iyo waxyaalo sidaasa ayna kaga fekeraynin. marka tafkiirku alle uu sheegayaayo ka noocaasa ma aha. wاlآaيaaت في الbaabi kaثيirة wa min الأxaadiiث alxadiiث الsaabiq xadiidkii hore ayaa ka mid ee soo hormaray ee ahaa alkayisu man daana nafsahu, xadiidkii hadda ka hor aan soo maray mashaa'ikhduna ay daciifiyeen een dhihi jirayna waxaan filaynaa inaanu xasan ka yarayn ee shahiidkiisa aan sheegnay, kaasaa isaguna ka mid aha. baabun fi اlmubaadarati ilى اlkhayraat, degdega khayrka loo degdego oo aan laga daahin. wa xafi man tawajaha likhayrin, iyo guubaabada lagu guubaabinayo qofkii shay khayra xaggiisa u jeedsaday oo inuu sameeyo doono cala aliqbaali calayhi biاljiddi min gayri taradud, inuu shaygaas ku jeedsado oo si dadaal uu ku jiro oo waac iyo taradud iyo takaasul aanu ku jirin uu u galo shaygaas. qaala allahu tacaala faاstabiqu اlkhayraat, u tartama khayraadka u tartama. wa qaala tacaala وsاarcوu إilى مغfiraة min rabbiكم وجنة cرضha السmaaوaaت والأرض عidة للمتقيin. saaricuu u degdega ilىa مغfiraةin dembi dhaaf oo min rabbikum rabbigiina xaggiisa ka yimid iyo وajannatin beer carduhaa ballarkeedu aلsamaaوaaت والأrض, samaawaadkii ardadu la isku fidiyey uu la eg yahay. hal beer oo keliya, hal qof oo dadka jannaha ah qofka ugu darajo yar ah waxa la siinayo iyo samaawaadka iyo ardadaba adduunka oo dhan kaga weyn 7 goor kusoo laalaabmaysa. ucidad oo loo diyaariyey lilmuttaqiina, kuwa alla ka cabsada loo diyaariyey. marka aayadaha kalena ay sii sheegaan kuwa muttaqiinta kuwa ay yihiin oo taqwadu waxay tahay laga garanayo. aladiina yunfiquuna fi الsaraa'i wالضaraa'i wاlkaadimiina ilaa aakhiri الaayaat. yani marka kol hadday tiri ucidad macnuhu waxaa weeyaan jannadu waa abuuran tahay oo waa jirtaa. dad waxaa jira ku dooda oo yidhaaha jannadu hadhow baa alla abuuri doona iyo naarta toona hadda ma abuura, laakiin axaadiidta iyo aayadooda waxay caddaynayaan in alla uu abuuray oo ay jiraan oo haddaba ay joogaan. wa ama alaxaadiid faalawalu can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalama qaal baadiruu biاlأcmaali fitanan kaqiطaci اleyli اlmudlim yusbixu الrajulu muؤmina wayumsi kaafira aw yumsi muؤmina yusbixu الrajulu muؤmina wayumsi kaafiran aw yumsi muؤmina wayumsi muؤminan wayusbixu kaafira yabiicu diinahu bicaraضi min الdunya. baadiruu ka booba oo uga horeeya uga degdega bilacmaal camalada saalixa badsada oo fitanan fitnooyin ka degdega, fitnooyin imaan doona oo waktigaas ayna idiin suuroobi karaynin camalkii saalixa sidai hadday idinku suurogelayso booba oo badsada camalka saalixa intayna fitnooyinkaasu idinku dhicin. fitnooyinkaoo ka qiطaci leyli اlmudlim, habeen mugdiya saacadihiisa oo kale ah, oo siday saacadaha habeenku isaga daba yimaadaano marka saacadi tagtaba tu kale u imaanayso fitnasaa isaga daba dhacaya oo mid markay dhammaataba tu kale ay ka daba imaanayso silsilada daba socdo ah oo midaba midda kale ay ka weynto oo midaba midii kale lagu ilaawayo inta ayna dhicin. marka fitantaasuna qalaaqisha iyo dagaalada iyo waxyaalaha dadka muslimiinta dhexdooda dhacaya sida hadda soomaaliya ka taagan oo kale iyo caalamka islaamigana meel aad u fara badan oo kamida ka taagan, kaasuu ka digayaa nebigu salى اllahu alayh wali wasalam. yusbixu الrajulu muؤminan, qofku wuxuu waabariisanayaa isagoo mu'mina, wayumsi wuxuuna gaalbaysanayaa oo gabalku u dhacayaa kaafiran isagoo gaaloobay. wayumsi mu'minan isaga oo yani mid kalena wuxuu gabalku u dhacayaa mu'minan isagoo mu'mina, wayusbixu kaafiran isagoo gaaloobayna waagu u baryayaa. sidee buu markaa u gaaloobayaa? yabiicu diinahu, diintiisuu ku iibinayaa bicaradin min addunya, nafci addunya diintiisa ku iibsanaya. alxasan albasri raximah اllah wuxuu ku fasiray kufrigan kada iyo iimaanka kada, wuxuu yihi yusbixu الrajulu mu'mina yani muxariman dama akhiihi, isagoo mu'minaho yani dhiigga muslimka iska ilaalinayaabuu yuu waagu u baryayaa. wayumsi waana gabaldhacsanayaa kaafiran isagoo walaalkii dhiigiisa xalaashanaya. marka
habeenkii baa balaayo lagu aqriyayo, maalintii baa lagu aqriyayo, reer hebel waxay yeeleen ma ogtahay, hebel la diliyo, kan baa la sameeyo, kana inagu sameeyeeno. markaasuu qoriga qaadanayaayoo dhiigga muslimiinta bannaysanayaayo dagaalada iyo fitnada dhankiisa ka gelayaa. ama habeenkii markuu soo haydaaba bale lagu aqriyayaa, naagihii iyo haweenkii carruurtii iyo waxay kusoo ururayaanoo ay ugu warramayaan wax balaya oo ku gubaabaya, markaasuu malada tuuranaya. rawaahu muslim. الثاني عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها سروعة iyo سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة العصراء. النبga صلى الله عليه وaلي وسلم jirkiisa ayaan madiine gadaashiisaan ku tukada, yani imaamuun baan u noqday salaada casr madiine anagoo joogna. fasallama waa salaamo naqsaday, ثuma qaama waa kacay musrican isagoo degdegaya, fatakhaطىa riqaaba الnaas dadka qoortooda ka taltallaabsaday, yani dadkiibu soo jiro ka soo taltallaabsaday, ilaa bacdi xujari nisaa'ihi haweenkiisa qolalkooda midood ayuu soo aaday, si dhaqsa ah buu soo baxay. marka takhadigaasu haddii qofka arrin degdeg ku qasabtahay ay jirto way bannaan tahay, laakiin sida dadka qaarkood ay yeelaano iyagoo soo daahay masjidkii oo laga hor buuxiyey inay dadka soo jiraan oo kusoo joogjoogsan kasoo taltallaabsadaan meel raadsanayaan, iyo taas weeye midda xaaraamta ee nebigu ka digay gaar ahaan maalinta jumcada iyo ayb. marka arrin taari oo ku timid daraaddeed oo degdeg uga baahan daraaddeed buu nebigu alayh sala dadka usoo jiro uga soo taltallaabsaday. fafazica annaasu min surcatihi dadkii waxay ka anfariiroon ka argagaxeen dhaqsaha u kacay. talow maxaa nebiga alay slam maxaa ku dhacay? fakharaja calayhim waa ku soo baxay, fara'aa wuxuu arkay annahum qad cajibuu min surcatihi inay ka yaabeen dhaqsihiisii. qaala markaasu wuxuu yidhi dakartu waxaan xusuustay shay-an min tibrin cindanaa, wax oo tibri ah oo agtayada yaalay baan soo xusuustay. tibrigana isagaa fasiri doone waa macdanka dahabka ama fidada ah een weli la tumin een lacag laga dhigin ee sidii looga soo qoday godkii ah, kaasaa la yidhaahaa tibr. fakarihtuhu waxaan necbaysa an yaxbisanii inuu hawliyo, daahiyaan ka baqay oo caawa uu guriga ku baryo. faamartu biqismatihi qaybintiisaan ayaan faray. wax dahabaho uu rabay nebigu sala allahu alayh waali wasalam inuu qaybiyo yuu salaaddii kusoo dhex xusuustay. marka intii sidii caadigiisa uu ahaaye kolkuu salaada laga baxo inuu waxoogaa yar fadhiyo oo dikrigii iyo la yimaadaadii waa khilaafo, isla markiiba tuuboodi oo dadkii joogay ayuu soo kala hagaajiyey, markaasna soo noqday. marka macaani marka waxaa weeyaan wuxuu ku camal falayaa nebigu sal l slam amarkii aayadahan soo marray oo khayrka in loo degdego si dhaqsa loo sameeya. rawaahu albukhaariy wa fii riwaayatin lahu yacni lilbukhaariy kuntu khallaftu fi lbeyti tibran min asadaqa, waxaan kaga imid guriga tibri oo zakadii ah. fakarihtu an ubayitahu, waxaan necbaystay inaan bariyo oo caawa u baryo oon daahiyo ayaan necbaystay, anugu dadkii mute aan gaadhsiinin uu igu baryo. atibru qiطcu dahabin aw fida, waa qidcooyin dahab ama fida oo yani kolkaas lacag aan ahayn. الثالث عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد nin baa ku yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam maalintii uxud, yani dagaalkii uxud markii uu dhacayay buu ku yidhi ara'ayta bal iiga warran in qutiltu haddii la idilo. yooma uxuddaas yaa muxuu ahaayey shaad weeyaane arrinkankadu wuxuu dhacay sida mashhuurka ku afi kutuba siyar yooma bedr. ara'ayta iiga warran in qutiltu haddii la idilo fa ayna ana, xaggeen anigu jooga, xaggeen tegaya haddii la idilo. qaala markaasuu yihi fi ljanna, jannadaa tahay, jannadaad gelaysa. fa alqaa wuxuu tuuray ninkaasu tamaraatin fii yadihi, kunna fii yadihi, xabado timir oo gacanta uu ku hayay oo cunayey oo rabay inuu dagaalka ugu tabaraysto yuu iska tuuray. ninkaasna waxaa la dhihi jiray cumayr ibn alximaam ayaa la dhihi jiray radia allahu canhu. uma qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay. muttafaqun calayhi. marka ninkaasu wuxuu ka degdegay xabadihii timirta ahaa ee dhuubka uu ku haystay intuu cunayo dhammaysanayo inuu khayrkii iyo jihaadkii ka sii fadhiyo ayuu ka dheeraystay oo
riwaayo kalena waxayba tidhaha wuxuu yidhi lain baqiitu xataa aakula tamaraati haadihi inahaa la xayaatun طawiila haddiiba aan sii noolaado intan dhuubkaa timirtaa ka dhammaysanayo waaban cimri dheeraha. markaasu intuu iska sayday ayuu jihaadkii dhankiisa ka galay oo uu ku dhintay radia allahu canhu. xadiidkan kada waxaa weeye muttafaqun calayhi wuuna soo noqon doonaa raqم 1314. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رsuuل الله أي الصدقة أعظم أجرا صدقada teeba ugu weyn xagga أجرka qaala markaasuu wuxu uhi an taصدqa inaad صadqaysataba ugu weyn وأnta صaحيiح adiguna aad fayowdahay شhaحيiح oo maal jeceshaa maalka ku dhegan tahay تkشhى الفقر فqri aad ka baqayso وتأmل الغنىa hodantinimana aad rajaynayso adigoo fayow oo maal jecel oo inaad maalku uu kuu batana rajaynaya inuu maalku kaa yaraadana ka baqayso oo isu haysto inaad muddo badan noolaanayso inaad wax sadaqaysato taasaa ugu fiican. walaa tumhil ha koranino ha sugin xataa idaa balagat alxulquum markay hunguriga naftu soo gaadho dhuunta kuu timaadee sakaraadka ku hayo qulta aad dhahdo lifulaanin kada walifulaanin kada hebel waxaasuu leeyahay hebelna waxaasuu leeyahay waqad kaana lifulaan qad kaana lifulaanin taasu laba macno ixtimaashaa midu waxaa weeyaan inuu iqraar yahay qirasho uu qiranayo oo qowlka ninkaas uu ka mid yahayoo aad tidhaaho waqad kaana lifulaanin calaya kada wakada hebel waxaasu igu lahaan jiray. inuu min qowli الnabiy salى اllahu alay wasalam uu yahayna waa suurowdo fulaanka uu sheegayana waaridkii uu ka wado oo macnuhu uu yahay waqad kaana almaalu yani saara maalu maalkii isaga oo noqdayba lifulaan yani liwaarisika oo kolkaa maalkaagiiba aan ahayn hantidaadiiba aan ahaynoo maalkaagood la baxaysa aan ahayn kolkaa hala sugin. muttafaqun calayhi. alxulquumu majra nafas meesha hunguricadka ay neeftu marto kaasaa la yidhaahaa. waalmarii'u majra aطacaami washaraab mari-ana waxaa la yidhaha hunguri madowga cuntada iyo cabitaanka iyo maraan kaasaa la yidhaha طacaamka iyo sharaabka kay maraan. الخامس عن أنس رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم أخذa سيفا يومa أحد sayf buu qaaday nebigu صلى الله عليه وسلم maalintii أحد faqاala markaasuu yihi man yأخذu minii hada yaa seefkan iga qaadanaya fabasطوu أydiyahum gacmahooday soo fidiyeen kulu إنساani minهum yaqulu أna nin walibana uu leeyahay aniga oo inuu ku dagaalgalo uu rabo. qaala markaasuu yihi faman yaakuduhu bixaqi yaa xaqiisa ku qaadanaya bilaash laysaga qaadanaya meehe xaq buu leeyahay sharad baa uu leeyahay yaa ku qaadanaya. faaxjama annaasu dadkii waa ka joogsadeen oo dib bay gacmihii uga laabteen. faqaala abu dujaanata radia allahu canhu ninka abu dujaana la yidhaha magaciisana oo iman doona baa wuxuu yidhi ana aakuduhu bixaqi anaa xaqiisa ku qaadan doona yaa rasuula allah. faأkhadahu waa uu qaatay fafaraqa bihi wuxuu ku kala jeexay haama almushrikiin yani ru'uusa almushrikiin. haam waa jamcu haama haamaduna waa madax gaaladu madaxa kala dhaco ku kala jaray. rawaahu muslim. isma abi dujaana simaak ibn kharashata radia allahu canhu qowluhu axjama ay tawaqafuu faraqa bihi ay shaqa haama almushrikiina ay ru'uusahum. السادس عن الزبير بن عدي قال أتynaa أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك baanu nimid fashakwnaa إليhi waxaan uga dacwoonnay ma nalقىa min الحajاaج الحajاaج بن يوسف الثقفي الأمير الظالم أمير العراaq dhibkuu nagu hayo iyaan أنس ugaga calaacallay. faqاala markaasu wuxuu yidhi اصbiruu iska sabra iska dulqaata faإnahu xaalku wuxuu yahay laa yأتيi زamaanu waqti inaanu imaanaynin إilaa waladii bacdahu sharu minhu kaka dambeeya unbaa kasii xun sharka ka dambeeya unbaa waqti walba kasii xunoo dadkeedin kasii dambeeya idinka dhib badnaan doonee iska sabra xataa talqow rabbakum ilaa rabbigiin aad kala kulantaan samictuhu min nabiyikum sala allahu alay slam nabigiinaan arrintaas aan ka maqlay marka xadiidkan kadu marka waxaa weeyaan xagga uu ka soo gelayo baabkii isaga ahaa waxaa weeyaan in khayrka ay iyo camalka ay badsadaan oo ayna waxba muxuu ahay dhibaatadan haysatay iyo waxa ay iska ilaawaan oo waqti fiican bay hadda ku jiraan oo kolka loo fiiriyo waqtiyaalka kale ay khayrka badsadaan
saasuu ku guubaabinaya oo xadiidkii wuxuu la mid yahay baadiru bilacmaalidii aan soo marray oo kale buu la macno yahay rawahu الbukhaariي السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاal baadiruu بالأعماaل سبعا ka boob oo kaga degdega camalada صaalixada ah toddoba arrimood intayna imaanin camalka saalixa badsada oo muxuu ahay ka degdega hal tantadiruuna miyaad sugaysaan ilaa faqran munsiya ilaa faqiirnimo oo idin ilowsiisa naftiinaba idin ilowsayso camal iyo waxba aydan xusuusanin aw غina mudqiya ama hodantinimo idin kibrisa aw maradan mufsida ama jiro oo quwadiinna iyo muxuu xawaasiinaba fasaadisa oo aydan wax ka qabsan karaynin aw haraman mufanida ama muxuu ahaa gabow oo idin fasaadiyo oo caqliga idinka qaada aw mowta mujhiza ama geeri idin dedejiso oo si dhaqsa a nafta idinka qaata aw dajaala mise dajaal mooyaane fasharu gaa'ibin yuntadar wax la sugaayo oo maqan ka ugu xun weeye isaguna dajaal aw saacata mise qiyaamaha mooyaane wasaacatu qiyaamahaana adhaa musiibo badan wa amar oo kharaad badan toddobadaa waxaan ahayno sugaysaan toddobadan midkood intaynu idinku dhicin camalka badsada weeyaan rawaahu aلtirmidiyu wa qaala xadiiثun xasan weeyaan buu yidhi sida runtaana xadiidku xasan maaha waa xadiid daciifa weeyaan xadiidkan kadu xadiid daciifa weeyaan oo sanadkiisa nin ku jiro oo la yidhaha muxarar ibni haaruun ninkaas oo daciif ah sababtiisu xadiidkan kadu ku daciifay xadiidkana mar labaad buu kusoo noqon doonaa raqم 578 الثامن عنه رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى اه عليه وسلم qاala يومa خaybر لأعطينa هذه الراaية رaجuلا يحب الlaha وrasuuله waxaan siinayaa walle waxaan siinayaa bandiiradda yani muxuu ahaayey jeiشhka lagu dagaalgeliyo weeyaan لأnno caadadu waxay ahaan jirtay qofka hogaaminaya dagaalka hogaaminaya yaa bandiiradda u qaadi jiro lagu soo hiran jiray الثامن عنه رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى اه عليه وسلم qاala يومa خaybر لأعطينa هذه الراaية رaجuلا يحب الlaha وrasuuله waxaan siinayaa walle waxaan siinayaa bandiiradda yani muxuu ahaayey jeiشhka lagu dagaalgeliyo weeyaan لأnno caadadu waxay ahaan jirtay qofka hogaaminaya dagaalka hogaaminaya yaa bandiiradda u qaadi jiro lagu soo hiran jiray oo colka ay fiirsan jireen oo meeshu mar ay ka soo dabamari jireen marka kolkaasna waxay ahayd dagaalka khaybar markii lagu jiray oo khaybarra yahuuddu waxay lahaayeen qalcado aad u waaweyn oo xoog badan khaybar macnaheeduba kolka la fiiriyo waa bimacna alxisni weeyaan khayaabirna waa la dhihi jiray bimacna alxusuun ah markaas isagoo inta la dagaalamay dagaalkii laga soo hoyday oo raggii waxba la soo qaban waayey oo dhaawacyo badan ay soo gaadheen kolkii galabtii marka laga soo noqday dagaalkii ayuu wuxuu yidhi berri waxaan bandiiradda u dhiibi doonaa nin alliya rasuulkiisa jecel oo alliya rasuulkiisuna ay jecel yihiin sida riwaaya kala dhacdo yaftaxu allahu calaa yadayhi alla subxaanahu wa tacaala gacantiisa uu inoogu furi doono oo guusha inagu siin doono yahuudda aan kaga adkaan doono qaala cumaru radi allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi famaa axbabtu ma aanan jeclaanin alimaarata madaxtinimo ilaa yowmaidin maalintaa mooyaane maalintaa maalin aan ahaynoo madaxtinimo jeclaaday ma jirto maalintaas waan jeclaado in ninka colka madaxda looga dhigayo bandiiradda loo dhiibaya aan noqdo ayaan jeclaystay jeclaysigaa u jeclaystayna marka madaxtinimo daraaddeed uma jeclaysanine ammaantaas alliya rasuulkiisu inay jecel yihiin oo alliya rasuulkiisana uu jecel yahay oo muslimiinta guuli u soo hoynayaa inuu fadiiladaa helo daraaddeed buu u jeclaystay fatasaawartu lahaa waan isu dheereeyey oo kor baan isugu taagay inuu arko oo uu ani ii dhiibo rajaa'an udcaa lahaa rajaynaan rajaynayo in aniga la iigu yeedho oo hool la iidhaaho fadacaa rasuulu llahi sala alla alay slm kolkaasu marka galab bay ahayd marka aroortii laisu soo yimid ayuu rasuulka alla wuxuu u yeedhay caliya bna abi aalibin radia allahu canhu cali bna abi aalib buu u yeedhay cali bna abi aalibna kolkaa goobtaa waaba ka maqnaa oo waa bakooraysnaa indhaha laga hayay siday riwaayadda sahl bni sacdin radia allahu canhuma ay sheegto markaasuu cali bna abi aalib buu u yeedhay faacطaahu iyaaha bandiiraddii buu siiyey wa qaala wuxuuna ku yidhi imshi walaa taltafit xataa yaftax allahu calayka waa halkan marka halka ulajeedada ee xadiidku uu ka soo gelaya baabka in qofkii shay khayra xaggiisa aadaay uu
ku dhaqsado oo si himmad ah uu u dhex galo. soco oo dib ha soo fiirinin ilaa alla guusha kaa siiyo. fasaara caliyu radia allahu canhu shay-an waxoogaa buu socday cali uma waqafa waa istaagay. kolkuu waxoogaa socday oo weliba la rucleeyey sida riwaayadaas kale sheegayso ayuu soo xusuustay inuu istifsaar nabiga sala allau alay wasalam uu uga baahan yahay. markaasna wuxuu xusuusnaa gadaal ha soo daymooninti marka intuu istaagay buu isagoo xaggii usii jeedan gadaal fiirinaynin yuu dhawaaqay. fasaraka waa dhawaaqay waa qayliye wuxuu ku dhawaaqay yaa rasuula allahi calaa maadaa uqaatilu nnaas. yaa rasuul allah dadka maxaan kula dagaalamaa? riwaa kalena waxay dhahdaa mayaan la dagaalamaa ilaa sideenna ka noqdaan maanan dagaalka ka daynaynin mise wax kaloon kaga daynaya baa jira. qaala markaasu wuxuu yidhi qaatilhum xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah. la dagaalam ilaa ay ka qiraan inaanu jirin ku la caabudo alle mooyaane muxamedna uu rasuulka alle uu yahay. faidaa facaluu daalika markay sidaa yeelaan faqad manacuu minka waa kaa ceshadeen dimaa'ahum dhiigoodii iyo wa amwaalahum xoolahoodayba ilaa bixaqihaa laa ilaha illa allahu xaqeedii mooyaane oo xuquuqda islaamiyadu waajibinaysa mooyaane waxyaalaha dhiigga in lagu daadiyo lagu dila mutaa inay galaan maalan oo qisaas iyo xuduud iyo waxa ay galaan ama maalka waxa in lagaga qaado markaa maalkii xaqii ku waajibay ceshadaan iyo wax sidaasa mooyaane. wa xisaabuhum cala allah xisaabtooduna allay la jirtaayo shahaadada ay ku dhawaaqayaan hadday munaafiqnimo ka tahay hadi shaqa kumalida ka aqbal xisaabtooda alla la jirta. rawaahu muslim. xadiidkuna mar labaad ayuu imaan doonaa raqam 175 ayuu ku imaan doonaa isaga oo laakiin waxoogaa ku khilaafsan oo ah riwaayo kale riwaayatu sahl ibni sacd inay tahay baan fiiriyaa middaa uu ku soo noqon doona. riwaayatu sahl ibni sacd wey laakiin isla qisada ayay iyaduna ku saabsan tahay. kaa sahl ibni sacdi naftiisu mar labaad ayuu isaguna soo noqon doonaa waa gaari doonaa. qowluhu tasaawartu huwa bisiini lmuhmala ay wasabtu watadxawaltu waan u boodayo waan isu dheereeyey weeyaan rasuulku istusaayey. baabun fi lmujaahada mujaahadada marka waxaa weeye waa nafta muxuu ahay cadaadinteeda iyo ku dadaalka lagu dadaalo cibaadada lagu dadaalo mujaahada la yidhaahaa. qaala allahu tacaala wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin. kuwa u jihaaday jidka iyaga ku jihaaday ee cibaadada iyada ku dadaalay lanahdiyannahum waxaan ku hanuuninaynaa subulana jidadka iyaga khayrkaan waafajinaynaa weeyaano jidadka khayrkaan ku hanuuninaynaa. wa ina allaha la maca almuxsiniin allana wuxuu la jiraa kuwa wanaagga sameeya ayuu la jiraayo uu taageeraayo miciyo khaas ah weeya miciyada noocan kadoo kale oo dad gaara markuu alla yidhaaho kuwaasu alla la jiraa macnihiisu waxaa weeye alla khayrku waafajinayaayo waa taageerayaayo waa hanuuninayaa weeyaan baa laga wadaa yani. wa qaala tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin. rabbigaa caabud ilaa ay yaqiintii kaaga timid lama huraankii ilahu kaga yimaado. yaqiinta la sheegayaana waa geerida siduu xadiid kale nebigu sala allau alayh wala slam ku fasiray. marka macnuhu waxaa weeye cibaadada rabbigaa daa'im ilaa aad kaga dhimato. wa qaala tacaala wadkur isma rabbika watabatal ilayhi tabtiila. udkur isma rabbika rabbigaa magaciisa xus watabatal ilayhi isaga u go tabtiilan go-itaan ay inqatic ilayhi alla u go weeyaan. ugo-idda alla loo go-ayaana la sheegayaana marka in meel la fadhiisto masjid iyo zaawiyadii la isku oodo oo adduunyada laga go-a maaha. waa in cibaadada alle iyo muxuu ahayey alla muraaqabadiisa la badiyo isagoo qofku adduunyadii ku dhex jiro oo muxuu ahaaye reer dhaqanayo oo maal dhaqanaya haddana aanu ilaawin alle xuquuqdiisii aanu ilaawin oo wuxuu samaynayaaba dar alla u sameeyo. wa qaala tacaala faman yacmal mihqaala daratin khayran yarah. man yacmal qofka sameeya mihqaala daratin quraanjo qadarkeed quraanjada yaryar ayaa la yidhaahaa darro la yidhaahaa. waxaa kaloo darro la yidhaahaa dariishada marka aad fiiriso uu iftiinka qoraxdu ka soo galo wax yaryar oo inuu dhex warwareegaysanayo aada moodo oo boor yaryar ah kaasna darro waa la yidhaha yani waxau laga wado wax aada u yar oo
khayran oo khayr ah qofka sameeyaayo yarahu waa arki doonaa wax yar oo khayra qofkii sameeyaayo waa arkaya wax yar oo shara qofkii sameeyaana waa arki doonaa wa qaala tacaala marka sidaasna macnaheedu waxaa weeye khayrka inaan la fudaydsanin waxaan wax macno lama aha daraaddi aan la isaga daynin wa qaala tacaala wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah huwa khayra waacdama ajra wamaa tuqadimuu lianfusikum wax alla waxaad naftiinna u hormarisaanoo min khayrin wax wanaagsan aba tajiduuhu cinda allah alla agtiisaaad ka heli doontaan huwa khayran isagoo khayr badan oo waacdama ajran weyn xagga ajrigana u weyn baad ka heli doontaan wax kastoo aad samaysaanoo wax yara ama wax weynaba wa qaala tacaala wamaa tunfiquu min khayrin faina allaha bihi caliim wax alla waxaad bixisaan oo wax khayra abaa alla waa ogyahay alla waa ogyahay marka la leeyahayna ya wamaa tunfiquu min khayr ya aayaddan ma tafcalu miyu ah waa laba kala aayadood baan filaya wamaa tunfiquu min khayrin fain allaha bihi caliim iyo aayaddantada marka isagu wuxuu ku dabdiyey aayadda 273 min suuraة الbaqara wاlآaayaat fi اlbaabi kahiiraة macluuma wama axaadiiث faالأwl can abi hurayraةa radي allahu canhu qala qala rasul اlahi slى اlه عalيه wali wsلم in allaha tacaalى qaala alla sarreeye wuxuu dhahay man caadaa lii waliyan qofkii la collooba weli kay ah qof saalix oo mu'min oo kay ah qofka la collooba faqad aadantuhu waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal inaan dagaal la gelayoon col u ahay yaan ogeysiiyey wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkayguna iiguma soo dhowaado bishay-in wax oo axabba ilaya aan ka jeclahay mima iftaradtuhu calayhi wixii aan ku waajibiyey waajibkii aan saare oo guto waxaan ka jeclahay oo addoonkaygu iigu soo dhowaadaa ma jiro wamaa yazaalu cabdii addoonkayguna kama zuulaya yataqarabu ilaya binnawaafil inuu iigu soo dhowaado sunnooyinka kolkuu faradkii guto haddana sunnooyinka xataa yuxibahu ilaa ka jeclaado kolka ugu horraysa waa in horta hore faradka la guto isagoon faradkii aan gudanin cibaado hadduu yidhaaho sunnooyin badso sunnooyinkaasi uma dhigmaayaan faradkaa u dayacay marka kolkuu faradkii guto buu marka sunnooyinkiisii badsanayaa ilaa uu alla uu ka jeclaado maxaba alla uu ka gaadho fa idaa axbabtuhu markaan jeclaadana kuntu waxaan ahaanayaa samcahu aladii yasmacu bihi maqalkiisa wax ku maqlayaan ahaanaya dhagihiisa wax ku maqlayaan u ahaanaya wa basarahu aladii yubsiru bihi araggiisa wax ku arkayaan u ahaanaya wayadahu alatii yabtishu bihaa gacantiisa wax ku qabanayaan u ahaanaya warijlahu alatii yamshi bihaa lugtiisa uu ku soconaya ayaan u ahaanaya sidaasaan xawaasta iyo xubnahaasaan u ahaanayaa marka uu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala laba siyood ayaa lagu fasiraayo midu waxaa weeyaan halkuu kaga adeegan lahaa xubnihiisa iyo xawaastiisa kaga adeegan lahaa oo wax ku qabsan lahaa anaa u qabanayo uma baahanayo waa si aan soo marray xadiidkii ibn cabaas aan kusoo marray ee ixfad illaaha tajidu tujaahaka iyo ayuu la mid yahay midka kalena waxaa weeyaan xubnihiisaas iyo adimadiisa iyo xawaastiisaasuba waxay noqonayaan kuwo ani ii go-an oo wax alla waxay qabanayaan oo dhanba dartay u qabanaya wain sa'alanii acطaytu hadduu waxay weydiisa waan siinayaa wain istacaadanii hadduu magan galo oo wax uu ka cudubilaystana la uciidannahu waan magan gelinayaa wuxuu alla wuxuu iga dalbado oo khayrana waa siinaya wixii sharahoo uu iga magan galana waa ka magan gelinaya rawahu albukhaariy aadantuhu macnaheedu waxaa weeye aclamtuhu biannii muxaaribun lahu inaan la dagaalamayaan ogeysiinaya alle qofka iska celin karaa marka muxuu yahay dadka muslimiinta ee mu'miniinta ee saalixiinta marka qofkii dhibaayo dagaalkaas alluu ku jiraayo ha iska ogaado isticaadanii ruwiya binnuuni wa bilba isticaadanii iyo isticaada b labadaba waa la weriye الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيma يرويه عن ربه عزa وجل waxa uu rabbigii ka warinayo kana marka wuxuu la mid yahay xadiid hadda ka hor aan soo marray oo xadiid qudsi ahaa ayuu la mid yahay xadiid qudsiga marka kadan la yidhaah wuxuu yidhi marka إida تaqرba الcabdu إlaya shibran تaqربtu إlayhi dirاaca addoonku hadduu xaggayga u soo dhowaado taako dhudhun baan aniguna u dhowaanaya xaggiisa yacni wax yaroo cibaada hadduu iila yimaado wax weyn oo ka badantiisii oo ajri iyo hawaabo baan siinayaa waidaa taqaraba ilaya diraacan
hadduu ii soo dhowaado suxul ii soo dhowaadana taqarabtu minhu baacan baac baan u dhowaanaya. baacna waxaa la yidhaahaa labada gacmood oo hareeraha loo kala fidiyo inta ay isu jiraan farahooda caaradahooda isu jiraan. wa idaa ataanii yamshi hadduu ii yimaado isagoo lugaynayo oo socda ataytuhu harwalatan anna waxaan u imaanayaa orod baan ugu imaanaya xaggiisaan u soo ordaya. rawaahu albukhaariy. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. rawaahu البخاaري. نicmataani laba nicmadood weeyaan maqbuun fiihimaa oo lagu dago oo ku khasaarsan yahay kahiiru min الnaas in badan oo dadka ka mid ah. laba nicmadood ayaa qaar badan oo dadka ka mid ihii ku khasaarsan yihiinoo lagu dagaayo ayna ka faa'iidaysanin oo ku habboonaan lahaa inay ka faa'iidaystaan. waa labadee asixatu caafimaadka iyo walfaraaqu howla-aanta. qof hayow oo hawlana aan haysanin xaas iyo carruur iyo waalid da-weyno iyo waxaas iyo mid aynu ku saabsanayn nicmo weyn buu haystaayo inuu ka faa'iidaysto aakhiriyadiisa iyo adduunkiisaba uga faa'iidaysto ku habboonaan lahayd. laakiin dadka badankoodu kama faa'idaystaan waa istabayacaan. dhallinyaradiina aada u dhegaysta marka waqti ay waxaa suuroodo waqti waxaad gaadhi doontaan haddii cumrigii alla idinku simo aad dhihi doontaan warberigii haddaan wax baran lahayn warberigii haddaan wax qabsan lahayn waa gooraan laga noqon karaynin. idinkoo waalidkiinni joogo oo waalidkiinni iyo walaalihiinni ka waaweynaa iyo antidiinni iyo waxeedinna idin diyaar yahay oo meelaha iska jooga iska ilaaliya marka nicmadaas waa la idin weydiin doonaa. rawaahu الbukhaariي. wa الraabic xadiidka afraadna can caaishaةa radي allahu canha ana الnabiya sal ly slam kaana yaquumu min alleyl habeenkii buu taagnaan jiray oo salaad u taagnaan jiray xataa tatafatara ilaa ay ka dildillaacdo qadamahu labadiisa gomadood lagu intay barbararaan ay dildillaacaan taagnida dherarkeeda daraaddeed. faqultu lahu waxaan ku idhi lima tasnacu hada ya rasuula اllahi waqad gafara allahu laka ma taqadama min dembika wama taأkhar. maxaad sidaa isugu dhibaysaa ya rasuula allah adigoo alla uu kuu dhaafay dembigaaga kii hor iyo kii dambaba. qaala markaasu wuxuu yidhi afalaa akunu cabdan shakuura oo miyaanan ahaanaynin marka hadduu alla sidaa ii yeelay addoon mahadnaq badan oo shukri badan miyaan ahaanaynin. yani shukri allah sidanteed u yeelayaa weeyaan. alla kol hadduu nicmada isiiye wuxuu iga mutay inaan ugu shukriyo. متفق عليه وهذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ayaa isaguna kanoo kale wariyey qisadan tadoo kale sidaasoo kale u wariyey. labadoodana waa متفق عalayh. xadiidkuna marka wuxuu ku iman doonaa 1160. الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رsuuل اللhi صلى اه علي سلم rasuulka alle wuxuu jiray إida dakla الcashru tobanku markay galaan tobanka dambe ee ramadaana weeyaane axya leyla habeenka waa noolayn jiray cibaaduu ku noolayn jiro ma seexan jirin ogogashiisa waa la duubi jiray waiqada ahlahu ciddiisana waa toosin jiray xaasaskiisa iyo gabdhihiisa iyo waa toosin jiray wajadda waa dadaali jiray washadda almi'zara guntigana waa dhuujisan jiray. متafaq عalayh. gunti dhuujintaa laba macno labada lagu fasiro mid waxaa weeyaan waa midkan uu sheegi doono ee ah inuu haweenka labadaba isaga sheegi doono haweenku ka fogaan jirayna waa la yidhaahaa oo 20 beriya hore waa suroobi jirtay inuu haweenkiisii la kulmo laakiin 10 dambe markay gaadhaan haweenka waa ka fogaan jiray ama cibaadadu badin jiray weeyaan. متafaq عalayh. isaguna wuxuu kusoo noqon doonaa 1223. wاlmuraadu الcشhr الأwaakiru min رamaضان tobanka la sheegay waa tobankaas. wاlmi'zar الإzaar mizarkuna waa hoosguntiga wa huwa shad الإzaarkaasuna kinaayaة can اعtizaal النisaa guntiga iskama furi jirin yani haween iskagama furi jirin baa laga wadaa haweenku ka fogaan jiray baa laga wadaa. arrinkaas oo kalena carabtu waa taqaanaayo gunti dhuujisashada iyaga oo ka wada naaga ka fogaadka waa jiraayo shecirkooda iyo waa laga helaayo nin baa wuxuu yidhi qowm idaa xaarabuu shaduu ma'aasirahum can الnisaa'i walow baatat biadhaari. niman u ammaanayay bu wuxuu waa niman oo marka ay dagaalamayaan guntigooda haweenka ka dhuujista walow haweenkooda hadday caadadii ka soo qubaystaan oo waqti ilma u diyaar yihiin waxa ay yihiin kola ku tahay uma dhowaadaan.
marka nimankaasu kolkay dagaalka galayaanbu ninkaas wuxuu ku ammaanay inay haweenka ka fogaadaan. rasuulkana sala allau alay wasalam wuxuu gelayaa marka jihaad aakhira buu gelayaayoo cibaadadu badsanayaa, markaasuu haweenka ka fogaan jiray. wa qiila almuraadu tashmiiruhu lilcibaada, xanjeerashadiisa cibaadada uu dadaali jiray baa laga wadaana waa la yidhi. yuqaalu shadadtu lihada alamri mizari, arrintan guntigaan isugu dhuujiyey, guntiguu dhisha iskaga dhigay ba kay soomaaliduna yidhaahaan, ay tashamartu wa tafaraqtu lahu, waan u xaytay oo waan u faaruq noqdo, wax kaloo dhan baan iska dhaafay, sida keliya aan u go-ay, taana way yidhaaheen. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. muؤminka tabartale baa ka fiican oo allana uu ka jecel yahay muؤminka tabarta yar, mid welibana khayr buu leeyahay. kolba hadduu muؤmin yahay wuxuu leeyahay khayr buu leeyahay, laakiin midka qawigaha tabarta leh kaasaa marka ka nafci badan oo muslimiinta nafci usoo jiidaya, kanse khayrkiisu kol hadduu daciif yahay waa naftiisa. اxris calىa maa yanfacuk, ku dadaal wixii wax kuu taraya, wax faa'iide ku lah oo dhan ku dadaal oo ha ka fadhiisanin ee danahaaga qabso, aakhiriya adduunkaagaba u shaqayso. wastacin billaahi, allana la kaasho. waa laba arrimood oo laba noocoo dadka ka midihi ay ku qaldamaan oo midba nooc ay ka tagaan. dadka qaarkood waxay inay mutawakiliin yihiin intay isku sheegaan ayay danahooda inay u shaqaystaan ka fadhiistaan, iyagoo kolka ku andacoonaya waxa alla ii qorayba waan helayaa, kolley ma seegayo. qaarra waxaa weeyaan intay dadaalaan oo ay shaqaystaan, laakiin xirfadooda iyo xariifnimadooda iyo nashaadkooda iyo quwaddooda iyo aqoontooda iyo keliya uun ay moodayaan inay wax ku helayaan, ee alla tawakulkiisiiba ay ka tegayaan iyo alla isticaanadiisii. marka labadaa inay isku daro weeyaan, qofkii wuxuu awooddiisa ahaana uu la yimaado, rabbina uu yidhaaho rabbiga uu la tala saarto. sida cumar ibn khataab radi allahu canhu ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi ninka mutawakilkihi waxaa weeyaan qofka beertiisa abuurka dhulka ku rida ee rabbina soo bixintiisa u tala saarta weeyaan. wastacin billahi alla la kaasho, walaa tacjiz, ha doqnoobin, ha doqnoobin oo danahaaga ha ka fadhiisanin. wain asaabaka shay-an, hadduu wax kugu dhacana falaa taqul low anii facaltu kana kada wakada, low anii facaltu kada wakada, samaydintaada low anii facaltu kada wakada, haddaan saa yeeli lahaa kaana kada wakada, saasay noqon lahayd. hadhihin kolka hore dadaal, laakiin markay dadaalkaagi waxba uu tari waayo qadarka alle kaa xoog badnaado oo arrintii ay si u dhacdo, kolkaa hadhihin haddaan saa yeeli lahaa saasay noqon lahayd. walaakin qul waxaad sa dhahdaa qadara allahu wamaa shaaa facal, allaa qadaray wuxuu doonuna sameeya, sidan allaa ii qadaray dheh. laakiin kolka hore wuxuu alla ii qadaray un baan helayaa, waxba anugu samaysan maayo hadhihin. goorta dambese u hoggaansan qadarka alla. marka qadarka alla isagoo horta horeba la rumaysan yahay, goorta loo hoggaansama ee la ogaanayaa waxa alla uu qadarayay wuxuu kale la kala ogaanayaa waa kolkay dhacdadu dhacdo. fa ina low, kelimadaa low ihi haddiidu taftaxu camala shayطaan, camalka shayطaanka furtaa, oo yacni qadarka alla odu hoggaansami weydi iyo sabir la-aan iyo waxaasay kuu keenaysaay haddii hadhihin. xadiidkana waxaa weeye rawaahu muslim. السابع canhu radي allahu canhu yani can abi hurayrata nafsih ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wali waslama qaal xujibat الnaaru bالشhahawaat waxujibat الjannatu biاlmakaarih, mutafaq calayh. xujibat waxaa lagu xayndaabay oo lagu hareereeyey annaaru, naarta waxaa lagu hareereeyey bishahawaati, waxyaalahay naftu jeceshahay, yani waxaa ka sokeeya oo lagu galaa oo loo sii maraa waxyaalaha nafta ay jeceshahay, maalka iyo zinada iyo beenta iyo rishwada iyo waxyaalahaas noocaasa ayaa naarta ka sokeeya oo naarta qofkii waxyaalaha jiila unbaa gala. waxujibat aljanna, jannadana waxaa lagu xijaabay, lagu xayndaabo, lagu hareereeyey, lagu weegaaray bilmakaari, waxyaalahay naftu kalhanaysa ee necbaysanayso, oo nafta oo shahawaadkeedii laga xirmaaniyo soomka iyo salaada iyo zakada iyo jihaadka iyo waxyaalahaas ayaa lagu galaa. muttafaqun calayhi. wa fii riwaayatin limuslim
xufat badel xujbad, xujbad bedelkeeda ayay iyadu waxay ahayd, halkay riwaayada hore xujbad ka ahayd iyo iyadu waxay riwaayada muslim dhegaysay xufat, waana isla macno. wa huwa bimacnaahu, xufadkaasu xujbad unbuu la macno yahay. ay baynahu wa baynaha hada alxijaab faإida facalahu dakalaha, macnuhu waxaa weeyaan qofka iyo naarta ama jannada xijaabkaasaa u dhexeeya, markuu xijaabkaas sameeyo buu mid walbaba xijaabkeeda hadduu usii maro ayuu gelayaa. الثامن عن أbي cabdالله xudayفة بن اليمان رضي الله عنهma. اليمان oo xudayfe aabihiisa صaxaabi buu ahaa shahiid oo min shuhadaaءi uxud ka mid ahay radي الlahu canهum, shuhadaaءi الkhandq yaan ujeeda radي الlahu canhu. waxa weeye magaciisa waxaa la dhihi jiray xusayl ibn jaabir ayaa la dhihi jiray radي الlahu canhu. qaala صlaytu maca الnabiyi salى الlahu عalayh waalih wasalam daata leyla, rasuulka alla salى الlahu alيyh wali slm yaan la tukaday habeen salaatuleylkiisii iska tukan jiray ayuu la soo kulmay oo markaasu ku xidhay. marka taasoo kalena uma diidi jirin nebigu salى الlahu عalayh waalih wasalam qofkii intuu la kulmo la tukada maanu u diidi jirin, waa u ogolaan jiray. laakiin in jamaaco weyn dadku ay ku soo xidhaan, gaar ahaan kolkay ramadaanka tahay iyo waa necbaayo, waa u diidi jiray oo waa kii ka baqi jiray in lagu farad yeelo. faiftataxa albaqara, wuxuu bilowday baqaruu bilowday, suuratu lbaqara buu bilaabay. faqultu waxaan is idhi yarkacu cinda almi'a, boqolka aayadood aayadda boqolaad markuu gaadhu rukuuci doonaa. uma madaa waa socday oo waa dhaafay. faqultu markaasaan waxaan idhi yusallii biha fii rakca yani fii salaa, salaad buu ku tukan doonaayo iyadu salaad u kala goyn doonaa labadeeda ragcadoodoo nuska markuu joogu rukuuci doonaa, nuska dambana ragcadda kaleu ku tukan doonaa. saasaan is idhi. famadaa waa socday oo waa dhaafay. faqultu waxaan is idhi yarkacu biha, iyadu ku rukuuci doonaa, iyadu hal ragca ku tukan doonaa baan is idhi. uma اftataxa الnisaa, haddana wuxuu bilowday suuratu nisaa buu bilowday kolkuu iyadii dhameeyey intuu ka booday suuratu ali cimraan. faqara'ha waa aqriyey. uma اftataxa ali cimraan, ali cimraan buu haddana bilowday intuu kusoo noqday. faqara'ha waa aqriyey. saddexdaas suuradood ee qur-aanka ugu dhaadheer buu aqriyey. yaqra' weliba waa aqriyayey mutarasilan, isagoo tartiibsanaya kaadsanaya, tartiib buu aqriyayey. idaa mara biaayatin fiiha tasbiixun sabax, weliba dikri buu ku dhex wadayoo markuu soo maro aayad oo subxaanalaysi ay ku jirto intuu joogsadaa buu subxaanalaysan jiray. wa idaa mara bisu'aalin sa'al, meel oo khayr iyo wanaag iyo janno iyo wax alle la weydiistay meeshay ku jiraan markuu soo marana intuu istaagaa buu alle weydiisan jiray. wa idaa mara bitacawudin tacawad, wax laga cawdi bilaysto oo cadaab iyo naar iyo ciqaab iyo waxyaalahaas markuu soo marana intuu joogsadaa buu alle ka magangeli jiray oo ka cawdi bilaysan jiray. saasuu ku waday. uma rakaca, markaasuu rukuucay. fajacala wuxuu bilaabay yaquulu inuu yidhaaho subxaana rabbiya alcadiim, inuu yidhaaho ku celceliyo. fakaana rukuucuhu, rukuucdiisii waxay ahayd naxwan min qiyaami, taagnidiisa wax ku dhow. taagnidii saddexdaa suuradood buu ku aqriyey in ku dhow yuu rukuucsanaa. uma qaala samica allahu liman xamidahu rabbana laka alxamdu, yani rukuucdii buu ka toosay. uma qaama qiyaaman طawiilan, wuxuu taagnaa taagni dheer, ictidaalkii yani qariiban oo u dhow mimaa rakaca intii uu rukuucsanaa ku dhodhow. uma sajada, haddana waa sujuuday. faqaala markaasuu wuxuu yihi subxaana rabbiya alأclىa, oo iyadana ku celcelinayey. fakaana sujuuduhu qariiban min qiyaamihi, sujuuddiisii waxay ku dhoweyd taagnidiisii bay ku dhoweyd. rawaahu muslim. labadaa ragcadood ayuu sidaa u tukaday nebigu sala allahu alayh waali wasalam. marka saddex suuradood u dhaadheerid buu ku aqriyey oo marka la fiiriyana ilaa 6 juz iyo dheeraad ayay isku noqonayaan. qur-aankii marka waxaa weeyaan waxay noqonayaan qur-aanka oo loo qaybiyey 5 meelood loo qaybiyey meel ka mida taqriiban bay noqonayaan. halkaa labada ragcadood halkaa ragcadood buu ku aqriyey, halkaa ragcadood buu ku aqriyey. tii kalena hadduu intaasoo kale ku aqriyo marka intay la ekaanayso
waa la qiyaasi karaa inuu salaad aada iyo aada u dheer ay ahayd. marka mujaahadada noocaas oo kale baa la yidhaha cibaadada la badiyo ee qur-aan aqriska iyo sujuudda iyo rukuucda iyo la dheeriya nooca sidaas oo kale ah baa la yidhaha. marka waxaa xadiidkan kada laga garanayaa nebigu sala allahu alayh waali wasalam cibaadadiisu nooca ay ahayd salaatuleilkiisu sida u dheerayd. amaa salaadiisa kale dadka uu tujinayo saa umayna dheereenoo dadka ugu danayn jiray calayhi salaatu wassalaam. marka uu keligii u tukanayese rabbigii buu la munaajoodi jiray, munaajaadka rabbi buu ku macaansan jiray oo ku raaxaysan jiray oo sidaasuu qur-aanka u aqriyi jiray. waxaan xadiidka ka fahmaynaa oo kale saxaabada ridwaanullahi calayhim aqoonta dheer ee qur-aanka ay u lahaayeen oo ay kala yaqaaneen aayad walbaba xataa lambarkeeda ay yaqaaneen. lianna xudayfa radia allahu canhu wuxuu garanayay aayaddii kala barhka ahayd iyo aayadda boqolka ahayd iyo suurat albaqara waxaa weeye 286 aayadood weeyaan. marka aayad walbaba midda ay tahay ayuu garanayay. waxaa kaloo laga fahmaya qur-aanka marka la aqriyayo suuradaha tartiibkan ay musxafka ugu qoran yihiin in loo aqriyayo inayna waxba waajib ayna ahayn oo cagsu tartiibna loo aqriyi karo. leanno nabigu sala allau alayh waali wasalam 2 suuradoodon isku xigin ayuu isku xijisiiyey ti udhexaysana marka goortii dambeeyey ugu dambaysiiyey. sidaasuu ku wadaayay nabigu sala allahu alayh waali wasalam. xadiidka muslim baa wariyey wuxuuna kusoo noqon doonaa raqم 1175. التاسع عن بن مسعوud رضي الله عنه qال صلyت mع النبي صلى الله عليه وaلي وسلم الليلة habeen baan la tukaday nebiga slى الله عليه وسلم sidii xudayfe oo kale isna habeen la soo kulmay salaatuleilkiisuu tukanayay markaasuu ku xidhay. faأطاala القiyaama taagnidii buu dheereeyey xatىa hamamtu بأmrin suu ilaa aan kaga hamiyey arrin xun qalbiga kusoo dhacday. qiila waxaa la yidhi ibnu mascuud la weydiiyey wamaa hamamta bihi oo maxaad ku hamiday? qaala hamamtu an ajlisa waadaca waxaan ku hamiyey inaan iska fadhiisto oo aan ka tago isagoo iska tukanaya aan ka goosto. ibnu mascuud baa marka xamili kari waayey oo la wadi kari waayey ilaa ay naftiisa ugaga sheekaysay inuu ka goosto oo rasuulka sala allahu alayh waali wasalam oo tukanaya uu ka goosto iska fadhiisto. ibnu mascuudna radia allahu canhu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu ka da'yaraa in doora buu ka da'yaraa. marka ibnu mascuudkaasoo sidaa uga da'yar haddii uu xamili kari waayey marka waxaa macnaheedu waxaa laga fahmaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam quwadda iyo nashaadka alla uu siiyey iyo siduu salaadiisa u dheera sidii tii muxuu ahaayey xudayfe qisadiisi oo kale yuu isagu muuna tafsiilinina yuu ka warramaya inay salaadiisu dheera. xadiidkan waxaa muttafaq caleyh isna wuxuu ku soo laaban doonaa raqم 1174. yani labadantada xadiid hadda isku xigta iyagoo sidaa cagsigeeda isugu xiga ayay soo noqon doonaan in sha allah. العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم qاal yتبع الmayta 3 maydka waxaa sii raaca marka qabrigiisa loo sii wado saddex shay baa sii raaca. أهluhu وamaaluhu وacamaluhu ciddiisii iyo maalkiisii iyo camalkiisii saddexdaasaa sii raacda. fayarjicu 2 وayabqى waaxid 2 waa soo noqonayaan kolkii godka lagu hubsado ee cidlada uga soo tegayaan midna waa ku hadhayaa godkaasuu la gelayaa. yarjicu ahluhu wa maaluhu ciddiisii dadkiisii iyo maalkiisii way soo noqonayaanoo xadhig yarna looga soo tegi maayo, baaldi yar, koob yar, badiil waxba looga soo tegi maayo. wa yabqى camaluhu camalkiisiina waa ku hadhayaa. متفق عalayhi isna wuxuu kusoo noqon doonaa رqم 461 walow شhaahid xasn عن النعمان بن بشير رضي الله عنه cinda الxaakim. kada waxaa wariyey أنس baa wariyey waana صaحيix wuxuuna leeyahay kula macno a نعmaan بن بشير oo xaakim ka warinaya ba isna yuu leeyahay. 11 عن ابن مسعوud رضي الله عنه qال qال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. naarta jannada ayaa midkiin walbaba uga dhow kabtiisa suunka kabta ay ku yeelan tahay ee cagta dhabarkeeda qabta kaasaa la yidhaahaa shiraak la yidhaahaa.
wالnaaru mihlu dalika naartuna waa sida oo kale. qof walbaba marka janno iyo naarbu mid walbaba qarka u saaran yahay, miduu geli doonana isma garanayo isagu. marka waxaa waajib ku ah inuu midna ka cararo, aada uga cararo ka fogaado, midna uu aada ugu ordo oo xaggeeda u cararo oo u dhowaado oo aada camalka u badsado. xadiidku waa rawaahu الbukhaariي, wuxuuna kusoo noqon doonaa raqam 445. الثاني عشر عن أبي قيس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أهل الصفة. أهل الصفيana ka mid ahaa, خاadمkii nabigana صلى الله عليه وآله وسلم ahaa, أهل الصفيana ka mid aha رضوان اللhi عaليهم. أهل صفhuna waxay ahaayeen sida uu xadiiث أبو هريرة uu sheegi doonaayo uu ka hadli doono فقراء المهاaجiriin yay ahaayeen oo aan dad iyo duunyo toona aan lahayn oo meel daash ahoo masjidka hortiisa ah oo xujrada rasuulka عalيه الصلاaةu وaسلاam ku dhow ilal aana calaamadaysan oo loo yaqaano sufadii inay tahay rawdada rasuulka عalيه الصلاة وسلام gadaal ka dambaysa halkaas hoy u tahay. dadkaasay ahaayeen ahlu sufa, marka dadkaasuu ka mid ahaa. qaala kuntu abitu maca rasuuli الlahi salى الlahu عalayhi وaalih wasalam, rasuulka alla salى الlahu عalيه wali wasalam ayaan la baryi jiray. faaatiihi waxaan u keeni jiray biwadu'ihi biyaha uu ku weyse qaadanaya iyo waxaajatihi dantiisa, kabaha iyo wuxuu cadayga iyo waxaas u diyaarin jiray. faqaala markaasuu wuxu uhi salnii, wax i weydiiso. caadadiisa waxaa ka mid ahayd ummadiisana uu faray qofkii wax u tara inuu abaalgudo. marka ninkaasuu khidmadii u khidmaynayay ayuu doonay inuu abaalgudo, markaasuu yihi wax i weydiiso. faqultu as'aluka muraafaqataka fi ljanna, waxaan ku weydiisanayaa rafiiqidaada jannada aan kugula rafiiqo, inaan jannada rafiiq kuugu noqdaan ku weydiisanayaa. faqaala markaasuu ninkaasu himo caalihu lahaayo wax adduunya iyo waxba toona ma aanu weydiisanine jannuu weydiistay. faqaala markaasuu wuxuu yidhi awa gayru dalik, mise waxaan ahayn makaasaad i weydiisanaysaa mise wax kale? faqultu huwa daaka, mae waa kaasuun, waxaan ku weydiisanayaayo waa kaasuun, wax kale kuma weydiisanayo. qaala markaasuu wuxuu yihi faacinnii calىa nafsik, naftaada igu taageer bikasrati sujuudi, sujuudda inaad badiso igu taageer, yani waan yeelaya, waa ku shafaaco qaadayaaye adiguna taageero si aad ahl ugu noqoto darajadaa weyn, cibaadada iyo sujuudda badso. rawahu muslim. hadda halkan kada marka ulajeedadu baabkan halkuu munaasibka ugu yahay waxa weeyaan rasuulku sala lla alay slm ninkaas wuxuu faray inuu camalka badiyo, gaar ahaan sujuudda inuu badiyo buu amray. marka mujaahadada taas weeyaan macnaheedu. waxaase halkan kada isweydiin leh, si xunna in loo fahmo laga yaaba oo dadka qaarkood ay si xunbaba u adeegsadaan ee dhahaya alla waxaan ahayn baa la baryi karaayo awliyadii iyo ambiyadii iyaa la baryi karaa. xadiidkan kada ninkaas la yidhaaho rabiicata bni kacbin radia allahu canhu, rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu weydiistay jannuu weydiistay. jannadana marka alla mooyaane wax kale oo awood u lahoo bixin karaa ma jiro. sidee bay marka ku noqonaysaa? waxa weeyaan wuxuu weydiistay nebiga sala allahu alayh waali wasalam, wuxuu ahaa shafaacu weydiistay, inuu alla u baryo ayuu weydiistay. taana waxaa tusinaysa riwaayatu axmed lihada alxadiid. axmed ibn xambal radi allahu canhu riwaayada xadiidkan ku wariyey yaa tusinaysa oo waxay ahayd lafdiga axmed baa wuxuu ahaa as'aluka an tashfaca lii yowma alqiyaama, inaad maalinta qiyaamaha ii shafaaco qaado ayaan ku weydiisanayaa. marka wuxuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam weydiistay waxay ahayd inuu u shafaaco qaado alla u barya bay ahayd. xadiidkaasuna waa xadiid saxiixa isaguna, oo waxaa saxiix yeelay ashaykh muqbil alwaadici fi asaxiix almusnad ku saxiix yeelay kaas isagana marka yani arrintaas saa u sharxaya. alxadiiثu aلثالث عشر can abi cabdillaahi wayuqaal abu cabdiraxmaan thawban ibni bujdud mawla rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam yaquulu calayka bikasrati الsujuud, ogow oo ku dadaal sujuudda badinteeda. fainaka adigu lan tasjuda lilahi sajda, alle uma sujuudaysid hal sujuud oo keliyana uma sujuudaysid
ilaa haddii aada u sujuuddose rafacaka allahu bihaa daraja alla darajuu ku dallacsiiyaa waxata canka bihaa khatii'a dembina waa kaagaga riday halka sujuudaba darajana waa lagu dallacsiinayaa dembina waa lagaa tuurayaaye wuxuu ahay ku dadaal sujuudda badnideeda ku dadaal rawaahu muslim. الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بصر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس dadka waxa ugu khayr badan man طaala cumruhu waxasuna camaluhu qofku cumrigiisu dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado. marka cumri dheer iyo camal dheer isku darsaday camal badan iyo cumri dheer isku darsaday qofkaas dadka ugu khayr badan waxaana ugu shar badan marka cagsigiisa oo qofku cumrigiisu dheeraado camalkiisuna xumaado ilaa midkaasu in alle intu cumrigiisu uu sii dheeraadaba kol hadduu camalkiisu wanaagsan yahay darajo unbaa u socota muxuu ahaa kii kale isagana dembi unbaa u socda. sidaa daraaddeed ba waa kaynu soo marray xadiidkii nebigu sal lla alay slam uu dadka kaa nahyinayay in kolkay qofka dhibaato ku dhacdo uu geeri tamaniyo inuu hadduu qofka alla geeri weydiisanayo inuu alla cilmigiisa uu ku xidho oo uu yidhaaho sidaa soo marray allahuma axyinii ma kaanat alxayaatu khayra li ila akhiri alxadiid. rawaahu التirmidiyu waqaala xadiiثun xasan xadiiثun xasan buu yidhi laakiin xadiidku waa xadiid صaxiixa صaxaxahu alalbaniyu fi saxiix الjaamiع الصغيir wabsrun bdami اlbaai wabisiin اlmuhmala bishri ma aha waxaa isku laga yaabaa inay isku dhehgalaan bishri iyo busri waana se busri weeyaane bishri maaha. والxadiiث الخaamiس عشhر عن أنس رضي الله عنه قال غاab عnي أنس بن النضر رضي الله عنه wuxuu ka maqnaa adeerkay أنس بن النضر أنس بن مالك khadimu rasuuli الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم waxaa la dhihi jiray أنس بن مالك بن النضر marka adeerkiis baa isagana أنس بن النضر la dhihi jiro aabihii la dhashay waana ka loogu magac daray isaga ayuu ahaa. marka أنس بن النضر رضي الله عنه wuxuu ka maqnaa oonu ka qayb gelin can qitaali badrin dagaalkii badri buu ka maqnaa. markaasuu kolkuu arkay qur-aanka kusoo degay iyo ajriga ay muteen dadkii badri dagaalkeedii ka qayb galay yuu aada iyo aada u murugooday oo inuu ka qayb geli lahaa uu jeclaystay. markaasuu niyooday oo uu nadar iyo ballan ku qaaday dagaal dambe oo nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu galay haddii uu ka qayb galo inuu si geesinima u dagaalamo. markaasu wuxuu yidhi faqaala markaasu wuxu uhi yaa rasuula allah qibtu can awali qitaalin qaatalta almushrikiin waxaan ka maqnaaday dagaalkii ugu horreeyey ee gaalada aada la dagaalantay. la-in illaahu ashhadanii hadduu alla ijoojiyo qitaala almushrikiin gaala la dagaalankeed aan ka qayb galo layarayanna allahu alla waa arki doonaa mise layuriyanna allahu alla waa tusin doonaa dadka ma asnac waxaan sameeyo yani ballan weyn buu qaadaya aan la tilmaami karayn waa wax la koobi karo ma noqon doonto saanu dagaalamo. falamaa kaana yowmu uxudin markuu yimid dagaalkii uxud inkashafa almuslimuun muslimiintii baa jabay inkashafuu yani inhazamuu waa jabeen. kolkii hore muslimiintu iyaga gaaladii jabiyey laakiin nimankii geedanka ahaa ee nebigu sala allahu alayh wali wasalam dhabarka inay ka ilaaliyaan dabarjabin in lagu sameeyey uu meesha u dhigay markay meeshii soo banneeyeen ee fardihii gaaladu ay dhabarka kaga yimaadeen ee arrintii ka luntay markaasay marka muslimiintii jabeen oo qaarkood ay baqihii madiinaba ku soo galeen. faqaala markaasu wuxuu yidhi allahuma actadiru ilayka mima sanaca haaulaa yani asxaabahu alla waan ka cudur daaranayaa nimankaas cararayow waxa ay sameeyeen wa abra-u ilayka waxaana kaaga beri ahay mima sanaca haaulaa kuwana waxa ay sameeyeen yani gaaladii buu ka wadaaye kuwaana beri baan ka yani mushrikiin allow nimanka kada gaalada ka carara ee naftooda la baxsanaya rasuulka sal allau alay slam meel cidlaa uga tegay waxa ay sameeyeen allow anugu kuma jira ha ii qabanin allow yani aan ka cudur daaranayna. marka walaalihii wixii xumaa ay sameeyeen ma aanu ka beri noqonin oo iyagii ma aanu goynin waa u cudur daaray kuwii kalese waa ka beri noqday. marka uma taqadama horu u socday xaggii gaaladiibuu u socday
فاstaqbalahu waxaa ka hor yimid sacd bnu mucaad sacd bnu mucaad baa ka hor yimid radia allahu canhu faqaala markaasu wuxuu yihi yaa sacda bna mucaad aljannatu warabbi اlkacba inii ajidu riixaha min duuni uxud jannadaa waxaan ku dhaartay kacbada rabbigeedaan ku dhaartay riwaayana waxay dhahaysaa rabbi nadri aabihi yani rabbigiisa yani kolleyba alluu ku dhaaranaya allaan ku dhaartay jannada inii ajidu riixaha carafteedaan ka helayaa min duuni uxud uxud sukadiisa isagoo nool bay jannada isu carfaysay taasuna waa karaama min karaamaatihi radia allahu canhu jannada carafteedii baa iiga soo kankamaysa uxud sukadiisa qaala sacdun sacdi baa wuxuu yidhi fama istatactu yaa rasuula allahi maa sanac siduu yeelay oo kale inaan yeelo ma aanan karin qaala anasun radia allahu canhu marka wuu gaaladii buu dhex galay wuu dagaalamay markaasaa la dilay fawajadnaa bihi waxaan ka hellay 89 dhowr iyo 80 darbatan bisayfi dhufasho seef lagu dhuftay iyo aw طacnatan birumxin ama tumaato wara lagu tumaatiyey ah aw ramyatan bisahmin ama ganid fallaar lagu soo galay ah yani muxua nabaro anwaacda silaaxa ee kala gedisan loogu nabareeyey oo si ay u kala gedisan oo tiradooda isku gaarayaan dhowr iyo 80 ayaan ka helay qof marka jirkiisa oo dhowr iyo 80 muxuu ahaa tumaatadood iyo seef lagu dhuftay ay ku yaalaan inuu jirkiisu aad u googo-ay oo cadowgu aad u dhex galay baa marka laga garanaya wawajadnaahu qad qutila waxaan helay in la dilay oo wamasala bihi almushrikuuna gaaladii ay jir dileen oo googooyeen famaa caraf kolkii marka ciil bay aad u qabeen oo dagaalkii badri jabkii ku gaadhay iyo raggeedii laga laayay iyobay aad ciil ugu qabeen oo marka muslimiintii shuhadada ridwaan ullahi calayhim waa ay jirdileen oo maydkoodii bay dooxdooxeen oo xubnaha googooyeen sanka iyo afka iyo googooyeen iyo dhagay iyo markay isagoo saa u galeen baan helay famaa carafahu axadun qofna ma aanu garanin ilaa ukhtuhu walaashi keliya unbaa garatay maxayna iyaduna ku garatay meel u fayoobaydoo lagu garta ma ayna ahayne bibanaanihi farihiisay ku garatay banaan waxaa la yidhaha faraha xubnahooda la yidhaahaa anaamilna waa la yidhaha marka calaamo oo faraha ku lahay oy taqaanay ayay ku garatay qaala anas radia allahu canhu kunnaa naraa waxaan u arki jiray mise wuxuu yidhi kunnaa nadunnu waxaan u malayn jiray ana hadihi alaayata nasalat fiihi wa fii ashbaahihi inay kusoo degtay isaga iyo dadkii lamid ahaa sida geesinimada u dagaalamay inay kusoo degtaan u arki jiray aayadduna waxay tahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbahu waminhum man yantadiru wamaa badaluu tabdiila ila akhirih mu'miniinta waxaa ka mida niman rumeeyey oo ka dhageeyey wixii allah ay ugu ballan qaadeen ee muxuha siduu ninkan ugu ballan qaaday ee isaga kuba dhawaaqay oo kale ah kii aan musayna marka iimaankiisaas ballanqaad alla u ballan qaadaya wuxuu allah uu faray inuu fulinayaa sadaquu ka dhageeyey maa caahadu allaha calayh wixii alla ugu ballan qaadeen wa minhum man qadaa naxbahu waxaa ka mida kuwaas qaar gutay oo oofsaday muxuu ahayey ajashooda oofsada oo markaa ku dhintay wa minhum man yata'iru qaar sugayana waa ka mid yihiin ila akhiriha xadiidkan waxaa muttafaq calayhi wuxuuna ku iman doonaa kalifatu 317 qawluhu layuriyannahu huwa bidammi alyaa. So inshallah subscribe to my YouTube channel Hoy Somali. Subscribe, follow and share Hoy Somali on Facebook.